ciidamada booliska ee gobolka Bari ayaa howlgalla ay ka sameeyeen deegaanka Shimbiro oo ku yaala bari ee magaalada Boosaaso waxa ay ku soo qabteen tahriibayaal 90 kor u dhaafaya kuwaas oo doonayay inay u taaribaan dalka Yemen. Tahriibayaashan oo badan Ethiopian ayaa xilligii la soo qabanayay waxa ay saarayeen laba doonyood oo nooca laashashka loo yaqaano waxaana ay ciidamadu sheegeen inay soo qabteen xilli ay ka baxayeen xeebta Shimbiro iyadoona howlgalkooda ay ka baxsadeen sida taliska ciidanku tilmaameen naqodayaashii doonta waday. taliyaha ciidanka booliska gobolka Bari Cismaan Xasan Cawke Afdalow oo saxaafadda kula hadlay gudaha dekedda Boosaaso ayaa ka warbixiyay howlgalkan ay ku soo qabteen tahriibayaasha. howlgalkii xalay la fuliyay oo laga fuliyay magaalada Boosaaso dhinaceeda bariga ah xeebta Shimbiro ilaa iyo Biro iyo Bacaad waxa laga soo qabtay laba laash oo tahriib ah oo ka baxaysa markaan ogaanay in tahriib halka ka baxayso xalay galinkii dhexe ilaa 5 saac baa lagu duulay 6 saac 7 saac ayagoo raranaya loo tagay dadkii iyo saxiimadihina waa la soo qabtay waxayna hadda ku xiran yihiin dekedda Boosaaso saxaafaddu waxay u jeedaa ama ay sawiratay ayaga oo dadkiina saaran yihiin laashashkiina ay yaalaan waxaana hadda soo qaban doonaa daba gali doonaa hadii alla idba nimankii lahaa laashashkaas oo ayaguna magaalada deegaan u ah oo la yaqaan magacyadooda saddexan hadii alla idba qaar ka mid ah dadka tahriibayaasha ah ayaa iyaguna waxay ka warbixiyeen sida loo qabtay iyo waliba halka ay ku wajahnayeen. Abdullah Muhammad Abdullah qaso qabtay Shimbir ana waan soo Yemen ana soo qabtay Shimbir way daha dad muulu in badan waan lugeynaa lugta ku daalay lugta la dhumaatay waan wadana way gaado kuma wadin gaariga magaalada soo saaro lugeeyaba waxaan lugeynaa 6 saac mala saas ma ina qabaalo ma una markaa amaha markii ugu horeysay oo ciidanka booliska gobolka Bari howlgalla ay sameeyaan ay ku soo qabtaan dad tahriibayaal ah waxaana muddooyinkii aynu soo dhaafnay socday oo ay ciidanku kula dagaalamayaan iyaduna ay aad u yaraatay tirada dadka Soomaalida ah ee tahriibaya maadaama xaaladda dalka Soomaaliya ay soo hagaagayso waxaana dadka ugu badan ee xilligan Boosaaso tahriibka u soo gaara ay noqdeen dal ka yimaada dalka aynu dariska nahay ee Ethiopia. Xuseen Xuska, Somali Public Radio, SBR, Boosaaso.